cidhidhi kasta uu qofka bini aadamkii galo hadduu tasbiixda badiyo wuu ka caafimaadaya. hadduu tasbiixda badiyo laabtiisu way caafimaadaysaa. waana dawadii la siiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee loo tilmaamay inay tahay waxa uu ku caafimaadayo. bale waa dawada kurbo oo dhan lagaga baxo. balaayadu markay kugu habsato ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamaya wadannuuni id dahaba mugaadiba fadana an lan naqdira calayhi fanaada fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin. nebiyullaahi yuunus baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya oo markuu tolkii ka cadhooday ay waxba ka maqli waayeen intuu cadhooday ka tegey isagoo moodaya inaan loo qabsanaynin. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waanu qabanay dabeetana waa kii doonta fuulay saynu wada naqaano. doontii dabeetana laga tuuray ama ka dhacay, dabeetana baddu liqday, badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay. qof badi liqday awal bay badi ahayd ilan geed la cuskadaana meelaad waxaad ku badbaadaa jirin. iyadoo baddu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay. markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin. fanaadaa fi ظulumaati antani waa mufasiradii. waxa uu ku dhawaaqay waa maxay? laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin. ilaahay o adunba xaq lagugu caabudaa. subxaanak xumaka hufnaantaade, nasahnidaada iyo weynidaade. inii kuntu min الظaalimiin. waxaanaan ku jiraa ma aha ilaahu dulmi aadi dulmidaye waa aniga dulmigaygii buu leeyahy. qofka mu'minka ee dhabta ahi wuxuu rumaysanyey ilaahay inuu yahay maxay? laysa bidallaamin lilcabiid. wax allaaliya waxaad idinku jiraa inuu yahay fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir. wax allaaliya waxaa mashaakilku qabsadaa waxaad geysatay in wax ka midoo lagu horumariyay inay tay, weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay wayacfu can kaiir. dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo dhan oo naarta lagaga wada jaraa. dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa. nebiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jiraiyo dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay. ilaahu dulmigaad adigu i dulmiday maaha. ilaahu afcaashaada oo dhiyo dhammaanta xuma waad ka dheertahay. subxaanak buu leeyahy. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoogu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nebiyullaahi yuunus inuu yahay maxay? tasbiixdaa ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya. haddana falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun baa ilahay yihi. falowlaa annahu kana min almusabixiin. haddii lala-yahay baa ilaahay leeyay markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada, kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun. halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyay inta laga soo saarayo. idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanaه wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay? waa inuu ahaa min almusabixiin. idan kurbadaa lagu faydaa ayan kaanat. kurbo ku haysato oo dhibaato ha noqoto oo jasadiya jidh ahaan kuu haysata, ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aada xamili kari la-d oo qaadi kari la-day, waxa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid. bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya inuu xidhiidh ka dhexeeyo inshiraaxu sadriga, qofku inuu farxo, laabtiisu ballaadhato, inuu ridaa dareemo, iyo tasbiixda in xidhiidh ka dhexeeyo. ilaahay subxaanaه wa tacaala nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay. alam nashrax laka sadrak. nebi muuse waa ku ducaysanayay rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani. ilaahu laabtayda ii waasiciyo ii sharax, cidhiidhi hay dareensiin. ilaahay nebi moxamed wuxuu u tilmaamayaa markaa siduu laabta ugu sharxoomayso siday tay. wa min waraa'ihina inaga fii suurati طaaha ilaahay wuxuu leeyahy
faصbir calى ma yaquuluun وصبح بxمd ربka qبلa طلوع الشhمس وqبلa غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهاar لacalaka ترضى baa ilahay yidhi waxaa ilaahay leeyahy صبر oo تصبixso oo tuko oo cibaadayso waagu intaanu beriyin iyo gobolku intaanu dhicin inta ka dhex leh iyo habeenka gobol ka mid ah iyo daclada maalintii waqtiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo o dhan aayadda waa soo hoosgelaya intaaba tasbiixsaa la yidhi maxaad helaysaa markaa lacalaka tardaa baa ilaahay yidhi kay tardaa si aad raalli ahaanshiye u heshid idan bayna alridaa watasbiix bay aayaddan isku xidhaysaa iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo warwarku inuu ka dego inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto waana wax la faray qofka muslimkaa fii xayaatihi kulliha ama fii yowmihi wa leyli intaan cadceedi soo bixin intaan cadceedu dhicin habeenka gobol ka mida maalinta qeybteeda hore maalinta qeybteeda dambe intaba aayaddu waa tilmaamaysaa